يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu halkan ku soo jeedinaynaa biidni illaahi tacaala mowduuc cinwaankiisu yahay alintisaaru lilnabiyi almukhtaari sala allahu caleyh wasalam, uhiilinta nabigeenna la doortay calayhi salaatu wasalaam. waxaynu kelmaddan uga golleenahay inaynu gudanno xaq ilaahi subxaanahu wa tacaala inagu waajibiyey oo alla inaga rabo guud ahaan haddaynu nahay dadka islaamka ah, ee qof meel dheer jooga iyo mid meel dhow jooga, mid yar iyo mid weyn, rag iyo dumarba. maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam iimaanka aynu rumaysannahay ayaa inagu kicinaya inaynu u hiilinno gooraynu joognaba. ilaahi subxaanahu wa tacaala waa ciddii uu abuuray ciddii ugu sharafta badnayd. wuxuu alla u soo diray ummadda si uu uga saaro madmadowga iyo dalaalka iyo dulumaadka uga saaro, hanuunka iyo toosnaanta iyo wanaaggana alla ugu saaro. ilaahi subxaanahu wa tacaala waa ammaanay xagga khalqiga guud ahaan. khalqiga gallad buu ku leeyahy, kooda raaca iyo ka aan raacin, xataa culimmadu soo yidhahdaan ka gaalnimada ku dhintaa gallad iyo fadli buu ku leeyahy. maxaa yeelay wuxuu ka badbaaday in adduunyada lagu cadaabo. waayo rasuulka sala allahu caleyh wasalam markuu soo baxay waxaa la joojiyey ummad la halaagaba oo toos loo cadaabo say u dhan yihiin. wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun. xataa kooda aan raacin ayuu u yahay fadli. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, dhammaantood naxariis buu u yahay. waayo dee cadaabkii adduunyo ee soo degdegi lah, ee la salabayn lah, ee la baabiin lahaa, ee cagta la marin lahaa ayay ka badbaadayeen. waa kow. culimmadu waxay gaarsiiyeen xata almaqtuulu bisuyuufi lmuslimiin, kay muslimiintu dilaan laftiisa ayuu u yahay fadli iyo gallad. maxaa yeelay wuxuu ka soo gaabinaya kufri badanuu kusii dhici lahaa iyo dembi badanuu samayn lahaa ayuu ka soo gaabinaya. waxaa kaloo rasuulku sala allahu caleyh wasalam ka mid ah galladda uu khalqiga u hayo iyo fadaa'isha weyn uu leeyahay iyo wanaagga ummadda u hayo. wuxuu u guban jiray inay islaamaan, wuxuu ka guban jiray inay gaalnimo ku dhacaan. gaalnimada hadday kusii adkaystaanna aad buu uga warwari jiray ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu turay uu ku yidhi falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa. malaa nebi yahow waxaad isu dilaysaa nimanka raadkooda adigoo ka cabsi qaba oo ka warwaraya inay rumayn waayaan. naftaada u tur baa la leeyahay, intii alla ugu talagalaan rumaynaysee ha warwarin, walbahaarna ha isku dilin. ciddaa u turaya waayo waa khalqiga. ilaahay subxaanahu wa tacaala dariiqiisa inay waafaqaan oo ay qaataan buu la doonayaa, iyagoo khayr la rabaa. wax alla wixii dadee islaame ee diinta alla qaatana si ka badan buu ugu farxaya. bal wuxuu isku masalay masal cajiib ah. xadiis saxiixa wuxuu leeyahy mahalii wamahalukum kamahali rajulin istawqada naara fajacala aljanaadibu walfaraashu yakacna fiihi wahuwa yaduuduhunna canhu faana aakhidun bixujusikum min annaar waantum tatafallatuuna calaya. aniga iyo idinku waxaynu ka dhigannahay sidii nin dab shitay. dabka waxa ku daadanaya waxa la yidhaha xaydhaweynta, xasharaadka, waxyaalaha duuloo dhan. ninkiina wuu ka ilaalinaya, wuu ka qabanaya. idinku naar baa isku guraysaan, anna waxaan idin hayaa guntiga oo waan idinka soo celinaya. rasuulkii caynka ahaa ee sidaa ugu dadaalayay ee bashariyadda iyo khalqigoo dhan hanuunkooda doonayay inay qaar liita oo aad u hooseeya oo aad u qiimo darani ay afka la gaadhaan waa arrin aad iyo aad u culus. waa arrin culayskeeda leh oo dhibkeeda leh oo mar walba
muslimiinta iyo inta ilaahay rasuulkiisa jecel ay ka gubanayaan iyaguna ay u aayayaan ciqaabteeda iyo dhibkeeda adduun iyo aakhira baa waayayaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala isagoo qur-aanka kariimka ku hadlaya innaa lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلهي بلن بوقاضي بلن كيسنا كمبحو وحولي الله جل وعلا رسوش يدا وانوهي لنا إيادتك مؤمنين تابا أدون كانوا قوهي لنا رسوش أردن فما بالك بخير البرية مخلوقاتك كي يقفل لك بدنا حاضوا ملايين إيا مؤمنين تابا وانوهي لنا أبو ألا لي أدون كانوا وانوهي لنا ما لنت مرخاتي يدو كعيان قيامها أنا وانوهي لنا ألا وانوهي لنا marka la ilaahay isagoo muuminiinta calaanay wuxuu ku yiri illa tansuruhu wa aayadaad moodo maanta inay muslimiinta ku socoto caalamka joogta illa tansuruhu hadaa u hiili weydaan faqad nasarahu Allah ilaahay waa u hiiliyay horena waa ugu hiiliyay imikana waa u hiilinaya marka mar walba Allah subhanahu wa ta'ala waa garab taagan yahay nabigiisa kariimka iyo rasuulkiisa fadliga badan waa garab taagan qofka rasuulka looga taaglaayahay ama ummadda looga taaglaayahay ama guruubyada looga taaglaayahay ee aflagaadeynaya ama gacan muslimiin bay ku bixi ama ilaahay subhanahu wa ta'ala calaamadihiisa waaweyn iyo ciqaabkiisa samaawiga ayaa ku dhacaya ha dheeraato ama ha dhawaato qoray noqotaba waliba kuweelaha ugu daran rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu habaari jiray dadka muslimiinta waxa laga rabaa marka dhamaantood waxa rasuulka hore u caayay iyo kuwa imka caayaya ciqaabka noocaas iyo qaar ka daran ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u keenay walaalayaal waxyaalaha muhiimka ah ee dadka muslimiinta laga rabo waxa kamid ah maxaa inaga waajiba rasuulka sallallahu alayhi wasallam xaqiisa maxay inaga waajiba waxa inaga waajiba maxabadiisa sallallahu alayhi wasallam inaynu jeclaano qodobka koobaad oo jacaylkiisa nafteena iyo maalkeena iyo waladkeena inaynu ka jeclaano waxayna la waajiba inaynu adeecno oo amarku ina siiyo adeecno wuxuu inoo diidana aynu ka tagno inaynu af iyo adinba rasuulka sallallahu alayhi wasallam aynu ugu hiilino marwaayi nasiib wanaag oo culimadii dalka oo ka waramaysa fadliga rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh codkoodana ku difaacaysa sharafta nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh haddii aan qayb ka ahay oo aan sawdkaygii ku darsaday aad baan ilaahay ugu mahadinayaa marna waa ii muruga iyo ciilkaambiyo cimrigaygaa igu simay yahuudi xun oo dhoor leh oo ilaahay rasuulkiisii ka dhiganaya meherad in maanta adduunyada qayb badan ay u sabciso oo aan ka waayey nin keliya oo maanta magac leh oo madaxdii caalamka islaamka inuu kelmad keliya uu difaaca rasuulka u yidhaahdo salawaatullaahi wasalaamu calayh halka aan ka helay nin nasraaniya oo kiristaaniya inuu yidhaahdo xurmada nebigu inay ilaashan tahay ninkaa kiristaanku wuxuu yidhi oo idaacadaha ka wada dhegaysanayseen ninka aad hooyadii caydo waxaa aan marnaba aanu kaaga dulqaadanaynin inuu gacan kula soo aado maxaa u malaynaysaan ummadaa nebigeedii caayaysaan nebigooda ha loo daayo oo cayda ha laga daayo marka nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh cay ma laha ilaahay baa ammaanay tabaaraka wa tacaala ilaahay baana magaciisa ku lamaaneeyey warafaca dikra ilaahay baana kor u qaaday ashahaado kasta iyo aadaan kastana nebiyullaahi moxamed waxa uu ku lamaan yahay magaca ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh iyada oo uu naftiisii iyo wakhtigiisii iyo noloshiisiiba waynoo huray oo fadliga maanta aynu haysanno iyo caafimaadka aynu haysanno iyo nadaafadda aynu haysanno iyo iimaanka saxiixa aynu haysanno iyo cibaadada waxgalka ah ee hadhow ilaahay tabaaraka wa tacaala wax nagu siinayo aynu haysanno waxaasoo dhanna uu juhdigii iyo dadaalkii nebi moxamed salawaatullahi wasalaamu calayh ilaahay nagu soo gaadhsiiyey oo maalintii beder aa wada garanaysaa nebigu inuu ku muusanaamayey allah ayow haddaad daa'ifadan maanta aada halaagto dib lagu caabudi maayo dhididkii nebi moxamed iyo dhiiggii nebi moxamed iyo saxaabadiisu ay daadiyeen iyo juhdigii ay bixiyeen baan maanta islaam ku nahay nebiga sidaas ee sharafta iyo karaamada inoo horseeday inuu yahuudi dhowrli maanta agteenna uu ku haylaafo waa wax inagu nuqsaan ah inaan kelmad keliya u huri weyno waa wax inagu nuqsaan ah ilaahayna uma baahna hiilkeenna nebi moxamedna uma baahna hiilkeenna haddaynu inagu ilaahay ku caabudi weyno
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلهي باوحوا ليهي إلا تنصروه هذا ذيك كعشتان نبي محمد وآؤه لويدان فقد نصره الله وحده النبي محمد دين نقول ما الرب باؤه لي إذ أخرجه الذين كفروا ما أنت قالوا أنت يقدين أي كسارين بلكي هذا شيء أي قدك بورتك يا الله أي كعررين نفتو ذي كل إرتين ما أنت أبا إلهي باؤه لي ما أنت إلهي تبارك وتعالى ووهي للدونا إلهي تبارك وتعالى وحو صار دونا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هدي أدويلك النبي الله محمد أمة محمد ما أنت كلام من دولان نبيك إلهي تبارك وتعالى وإذن بدليا وقار إن غفي عنه النبيك أوهيليا أي إلهي صار دونا إن إلهي ندورته وحي نشرفك إلينا مركين النبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه أي أوهيلنا وقول إيا فعل بعين وغهيلنا وقلبي يقال بعين وغهيلنا هدين تادينا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم إنتان إلهي إن قدر قادم إن إلهي أمدك لي نقول بدلين أمد هاي وحا إلهي نقول لي هاينا نبي محمد إلهي كعابدنا شعيل كيس شعيلك النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن صميم الإيمان إيمانك أزل كيسوي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بأن النبي قويني وحد يا رسول الله يا محمد الدنيا وحجه وأردن أدينا كاتي على نفتيد مويان نفتيد مويان وحي كالودن أدان كاتي عليه نبي حكود عليه الصلاة والسلام إذن إيمانك أبو كامل مين نقول من عمره كمال الإيمان وحويا إن نبي الله محمد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نبي الله محمد با كمدا روح كستو مسلم نفتيس waxaan naftaada la necabtahay ee aad uga qiiroonaysa inaad nabiyullaahi moxamed ka horraysiisood uga qiirato waa waajib diini wey wax la isla baryaya maaha qofka bini aadmiga hadday danku weydo aflagaadada iyo cayda nabiyullaahi moxamed loo geysanayo waxa weeyaan iimaankiisa dib ha ugu noqdo iimaankiisa waxbaa ka dhiman haddii isaga la caayi lahaa ama hooyadii la caayi lahaa ama qabiilkiisa la caayi lahaa waan hubaa inuu ka dhiidhiyi lahaa فكيف نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه ويهودي يرى دورني وكبك تنهرت إنه داونا إنه دقيسنا حتى إنه كدقي قحوينه ووحنا حانكنا عن نقصان النبوة وعار ويان ولقد نصاراني وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه ماحن هذا بمتو غيره مربي نروش بانتا بقشيه مربي كايحين درب وحاران من درباحة قوريد دكسده دقيد المال بشادي سكتا حاجة دورتا أبد ما أنت عدين النبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وهلكي يقص الرئيسي مدن كان هيد بلي مقيددي يقص الرئيسي هدان كدي دي وينو مالك لو إنو نول إيو سيد إنو بنانو هدي مجرتو مدي إسلام كاهي إيمان كيبنا دعوة عوين باكو قرنية شامبد بي تاريخ دو إنو قد دونتا إلهي درتي أين النبي محمد قد دينو حكمدا أسبابتا مركا حويان كمدا وحيابها إنه النبي عليه الصلاة والسلام أقوه لنا رسولك عليه الصلاة والسلام أنت أين الرمينك بعدي وأين الرمينين بالنبي جسي يحق إله سبحانه وتعالى كصادري إن مركا وحويان أطيعنه ورسولك عليه الصلاة والسلام أين كتل قاضنا وإله سبحانه وتعالى رسولك ينصادري أين مركا وحويان كو أطيعنه فلنت أين فلنا وحي النبي عليه الصلاة والسلام إن فري إياك تجيتانك أين كتجينه وحي النبي عليه الصلاة والسلام إن فري إن كتجنه حايل إلهي وحول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون تذكي إيمانك الله جهله إلهي رسولك سأطيع هناك جسننا إذن كم مقلية هناك جسننا إذن كم مقلية وفكم مركا رسولكم إلهي من رسولكم أطيعوا إلهي بأطيع تبارك وتعالى هدو رسولك خلافنا إلهي سبحانه وتعالى أي خلاف مركا وحي نوجه لنا وحكم ذا إنه أطيعنه ونبي عليه الصلاة والسلام أوامر تيس جان سنه ووحو إن فرق إنه كتجنه أي كتجنه رسول كريم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وحو كوري من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله كان جاي أطيع إلهي بأطيعي كان جاي عاصيانا إلهي سبحانه وتعالى أي عاصي حديث كلو يسقون مركا حوي صحيحة
rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummaddaydoo dhammi jannaday gelaysaa qof iska diida mooyaane qiila yaa rasuula allah waman ya'ba waxaa la weydiiyey rasuulka ilaahi yaa janno diidaya janno yaa diidaya rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam markaa waxa ugu jawaabay oo ku yidhi man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa kaanigay ateeca jannaduu gelaya bimacnaa jannaduu galay jannaduu gelaya kaanigay caasiyaana waa qof jannadii markaa waxa iska diiday waxaynu ugu nusraynaynaa rasuulkeena sala allahu calayh wasalam inaynu ku dayanno oo hadyigiisii iyo sunnadu nebigu calayhi salaatu wasalaam la yimi inaynu markaa wax weeyaan dabaqno oo aynu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dayanno oo camalka wanaagsane aynu qabanayno aynu nebiga calayhi salaatu wasalaam kaga dayanno habkuu ula yimid sifaduu ula yimid tiraduu ula yimid goortuu la yimid goobtuu kula yimid aynu kaga dayanno rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aanay noqon wax inaga nafteenna sida iyadu inagu doonayso nafteennu doonayso iyo sida inala qurux badnaato aanay noqonine rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu ku raad gurro oo aynu ku dayanno maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala waxau ihi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum waxaad ku tiraa nebi maxamedo haddaad ilaahay jeceshihiin anigoo nebi maxamed ay soo raaca ilaahay baa idin jeclaan dembigiinana dhaafaya falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka cabsadaan oo ha ka feejignaadaan kuwa amarka rasuulka khilaafaya inay ku habsato oy ku dhacdo fitno diintuba ay ka fidnowdo ama markaa waxa weeyaan cadaab darani markaa waxaynu ku habsado waxaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu heelinaynaa inaynu markaa waxa weeyaan dejinno martabadii iyo mansiladii ilaahay subxaana watacaala dejiyey oo aynaan dhaafinin kana hoosaysinin oo quluwiga wax la ydhaha aynu iska ilaalino quluwiga oo saxaabada ridwaanullahi calayhim waxay dhahdeen rasuulka umaanaan kici jirinoo waxaanu ogeyn arrintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nacayo karaahiyeysanayo rasuulkeenuna sala allahu alayh wasalam inoo sheegay laa tadruunii kamaa adrat inasaara ibnu maryam haygu xadgudbino ammaantayda ha ku xadgudbina siday markaa waxa weeye nasaaradu iyo kiristanku ay ugu xadgudbeen markaa ciise ibnu maryama oo ciise ibnu maryam maxay ka aaminsan yihiin dee waxay ka aaminsan yihiin inuu ilaahay yahay ama uu ilaahay yahay bay ka aaminsan yihiin marka inaynaan markaa waxa weeye darajadii nebiga calayhi salaatu wasalaam aynaan ka hoosaysin isla markaa aynaan dhaafin quluwi aynaan la iman xadgudub iyo gaboodfal midnaba aynaan la imanin oo ilaahay subxaana watacaala aayad qur'aan waxa uu ku yidhi waxaad ku tiraa qul laa amliku linafsii nafcan walaa dara ilaa maa shaa allah walow kuntu aclamu alghayba lastaktartu min alkhayr wamaa masani asuu dhib iyo dheeftoona nafteeda uma hanan karo oo uma hayo waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam cid ka sokaysa maxaad malanaysa dhib iyo dheeftoona nafteeda uma hayo haddaan qeybka ogahayna khayrka ayuun baan raadsan lahaayoo dhibaataba ibay soo gaadhay waxaynu ugu hiilinanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaynu badino salligiisa oo waxa weeyaan aynu ku sallino oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay bayna faray yaa ayuha alladii ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay bayna faray inaynu ku sallino rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi man sallaa calaya qofka aniga hal mar igu salliya ilaahay subxaana watacaala 10 jeer ayuu markaa waxa ku salliya bakhaylka ka la yidhaahdo wuxuu ku sifeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof lagu ag xusay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aan ku sallin idan waxyaabahaynu ugu hilinay bay ka mid tahay inaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam salligiisa markaa wax weeyaan badino waxaynu ugu hilinay nabiga calayhi salaatu wasalaam diintuu la yimi barashadeedii iyo ku dhaqankeedii iyo faafinteedii iyo isku xukunkeedii diin buu inoola yimid kitaab buu inoola yimid kaamila oo dhammaystiran oo ilaahay yidhi subxaana watacaala wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun kitaabkani sharaf buu kuu yahay adigu sharaf kuu yahay ummadaaduu sharaf u yahay ciddii raacda kitaabkaasi sharaftaasay taxqiijinaysa halkay sharaftoodu gaadhay nebi maxamed calayhi salatu wasalam carabi waxay ahaayeen kuwa dadka ugu liita ugu hooseeya rasuulkaasaa ilaahi subxaana watacaala ka soo dhex saaray rasuulkaasaa ilaahi subxaana watacaala kitaabkaa qiimaha badan ku soo dejiyey halkee bay gaadhay darajadoodii nebi maxamed calayhi salaatu wasalam iyo saxaabadiisa iyo intii raacday ee atbaacda u ahayd waxay gaadheen heer markaa waxa weeyaan cadowga maanta dadka muslimiinta ka dhigtay sandwich baa halkan markaa waxa weeyaan roodhida la marsado ee waxa weeyaan nusu saacaha laga dhigto halkaas maanta waxa weeyaan wax alla wuxuu maanta u aaba yeelaya ma jirto dadka markaa waxa weeyaan maanta cadowga dadka muslimiinta ee ilaahay cadowgiisa ee waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadowgiisa ee diinta cadowga u ah waxay u aaba yeelayaan ma jirto waxay gaadheen heer ay ka cabsadaan masaafo bil loo socdo markuu rasuulku calayhi salaam u jiro iyo ciidankiisu inay ka cabsadaan محمد والخميس محمد يا عيدن كيس شن قيبات كهابا soo socday oran jireen qaadan waligood buu caay jireen nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam quraanka ilaahay kaga warramay subhanahu wa ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati allahi yajhadun allah wuxuu subhanahu wa ta'ala wa ognahay inay kumru galinayso
waxay ku hadlayaan iyo qowlkooda xun taasi inay ku murug gelinayso waan ognahay baa Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay tabaaraka wa ta'ala قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك اديكم بينين بالله سبحانه وتعالى لكن waxay diidan yihiin ay ka madax adeegayaan waa xaqa maxamed al-amiin bay u yaqaaneen xeerbeegta bay ka dhigan jireen taladay u dhiiban jireen way aamini jireen nabiga kaleey salaam intaan la soo dirin aan loo waxyoonin laakiin markuu tawxiidka la yimid ilaahay kelidii caabuda oo waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala kelidii kacbadiisa ugu dawaafa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kelidii u gowraca oo ilaahay subhanahu wa ta'ala kelidii markaa waxa weeyaan ku xirma markaasay waxa weeyaan afka gacanta iska galiyeen aj'ala al-alihata ilahan waahidan in hada la shay'un ujaab ma ilaahayashi faraha badnaabaad mid qura ka soo reebtay bay dhahdeen marka arintani waa arin soo jireena inay nabiga wax ka sheegaan oo diinta islaamka wax ka sheegaan darajadiisa waxay yeeli karaan ma jirto ilaahay baa sharaf u dhameystiray nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wa rafa'na laka dhikrak xuskiisi baa ilaahay subhanahu wa ta'ala kor u qaad dadasoo ma tahmin ilaahay in badan baa quraanka ku amaanay tabaaraka wa ta'ala marka dhaqan bay u ahayd inay nabiga kaleey salaatu wasalaam wax ka sheegaan wayda ra'aka alladina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa ahada alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri arrahmanihum kafirun markay kula kulmaan nabi maxamedow way kugu ciyaarayaan dheel bay ka dhiganayaan ha maxaas waxay oranayaan kala soo rasuulka la soo diray makana ka ilaahayaashiina wax ka sheegay makana waa wax ay dhaqan u leeyihiin kuwa nabiga kaleey salaatu wasalaam goor walba caaya nidaamka keensadeen ee dimuqraadiyadda leeyahay ayaynu inagu qaadanay soo ma nidaamkaas ay dadku maanta u rixinayaan oo ka hadlaabo ku dholalaya dimuqraadiyadda xagay ka timi dimuqraadiyaddu waa nidaamka gaalku samaystay hore u sheegeen waxaanu doonaynaa lacagta qura caalamka ka shaqeysa inay noqoto dollar luqadda qura lagu hadlaana inay noqoto ingiriisi diinta qura dadku haystaan inay noqoto dimuqraadiyad hore way cadeeyeen maaha waxay qarsadaan marka rasuulkana waanu jecelahay diintu la yimid isku xukumi mayno diintu la yimid aaba yeeli mayno cibaadaad baynu kala soo hadhay marka u heelinta rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa kamida barashada diintii uu la yimid ku dhaqankeeda faafinteeda iyo isku xukunkeeda waan ixkum baynahum bima anzala Allah ba ilaahi subhanahu wa ta'ala ku kala xukum waxa ilaahi subhanahu wa ta'ala kugu soo dajiyay fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil aakhir marka wax isku qabataan kitaabkiisa sunnada u celiya ilaahi rasuulkiisa u celiya kitaabkiisa sunnada u celiya هداد إلهي آخر رميسنتهم بإله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلهي ويسكر دارتي تبارك وتعالى انتو إلهي سبحانه وتعالى اسكر دارتي فلا وربك لا يؤمنون ربي قابان كر دارتي رمين ما أيان بإله سبحانه وتعالى إلى أذيك أي كاغر دكتان قرصوري وحكم أذيك أي كاغر دكتان وحيسكو قبتان كهيلمات كالنبي شيء شماها مناها فوضى iyo taayir la gubay iyo dad suuqyada qaylqayliyo magaalada deganayeen dariiqadoodii iyo gaadiidkoodii iyo waxa iyagu haysteen guba taasi ma hilimaad maaha taasi waa ciyaar iyo dheeldheel weey hilimaadku waxa weeyaan diintan uu la yimid diintan ay ka xanaaqsan yihiin faafitaankeeda diidan yihiin iyadii aynu faafino iyadii aynu ku dhaqanno iyada aynu markaa waxa weeyaan ciz iyo sharaf ka doono waxyaabaha rasuulka kaleey salaatu wasalaam inuu hilina waxa kamid ah jacayl rasmi ah nabiga kaleey salaatu wasalaam inaynu jeclaan oo sharciga waafaqsan maaha jacayl markaa waxa weeye quluub ku jiro maaha jacayl markaa waxa weeyaan ka gaabiso xuquuqdii nabiga kaleey salaatu wasalaam aynu ka gaabinayno sida ay ahaayeen siiradoodii baynu haynaa iyo taariikhdoodii saxaabada radhiyallahu alayhim iyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ay jeclaayeen qul in kana aabaa'ukum wa ikhwaanukum wa abnaa'ukum wa azwaajukum wa ashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وحيلالي سبحانه وتعالى هدي آبياشين إيا ولالذين إيا أوريهين إيا أبدكين إيا حوليهين إيا قريهين انت أتكتش علاتين إلهي الرسول كيس يا جهادك إلهي الرسول كيس يا جهادك انت هداكتش علاتين سوق بقى لله سبحانه وتعالى انت إلهي أركيس الله يمنك مركا نبي عليه الصلاة والسلام محبدي سيتش عايل كيس ayaa kamid waxay noogu helina oo aynu ka jeclaanayno nafteena oo aynu ka jeclaanayno ubadkeena oo aynu ka jeclaanayno waalidkeena oo aynu ka jeclaanayno caalamka dadka ku nool waa rasuulkeenu kaleey salaatu wasalaam xadiiska Anas ka warinaya saxiixa waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam walladhi nafsu muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi waladihi wan nas ajma'in allah nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay midkii iimaankiisu iimaan kaamilo buuxan noqon maayo ilaa uga jeclaado ubadku isagu dhalay waalidkii isaga dhalay iyo caalamka dadka ku nool oo dhan taasay gaadheen oo taxqiijiyeen waxaynu ugu heelinaynaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam inaynu markaa wax weynayno
ووينين شرعي وافق النبي عليه الصلاة والسلام لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه أيها الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى كتابكم سودة شيء ونفره إن إلهي رمينه رسولك يسوينينه إنه معموسنا حتى إن لو جو يردون إن يرسينا وإنه سجوا يردنا ها لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ساي سجوا يرسان هبلو هو يردنا رسولك إلهي يا نبي الله يا رسول الله ويا رسول يا الله سبحانه وتعالى وين أنت سيمرك وحي هلمات كيس أي كمتها هلمات كيس وقول يا فعل يا قلب انتبه قف والبنا أنت مسؤوليتك صارنتها أي كجب يجنتها أي مركها وحويا صار مركها وحويا إن مركها وحويا دين تيسي دفاعنا كل قنو فافنو عز يا شرف ويا كدون ما أنت عز يا شرف وحكر على قدوني دين تينا محمد لي بدين عز يا شرف كوب بعد دونه وأينان ملك لك بعد دونه ونحول لك بعد دونه ونظام مركها وحويا وضعي أن لقى دونه لكن لقى دونه دينتي إلهي سبحانه وتعالى رسوله كسودة شيء مركا عدو جينو عدو قدينته عدو إلهي عدو رسولك ولمنك قاليضه وإلهي عدو كتل الله سبحانه وتعالى إن بدنا قرآنك كجور رمي waxay arkayaan dadka muslimiintii maanta sida yihiin dad maanta diintoodii saaka oo diintoodii ka jeestay diintoodii difaaci kari maayaan jihaad geli kari maayaan cadawgooda iska dhicin kari maayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo dhisay saxaabada caqiidadooda soo dhisay dad ilaahay ku xidhan buu ka dhigay tabaaraka wa tacaala 13 sanadood oo maka la joogay ayuu caqiidadooda dhisay oo waxa soo baxay rag iyo dumarba darbiniin finiinka hadhaba soo hadhay iyo soo baxay oo haday wax bixin noqoto xoolahooda dhan ku deeqaya oo haday jihaad iyo dagaal noqoto waxa weeyaan aan soo laabanaynin oo haday markaa wax sabir noqoto sabirkooda waxa weeyaan wax u dhigma aanu jirin oo haday noqoto maxabiya jacayl ilaahay rasuulkiisa ay jecel yihiin cid u dhigataaba aan jirin curwat ibn mas'uud waa ka sheekaynaya dad meelo badan baan wafti ku tagay oo aan u tagay boqorro badanna waan booqday waa intaanu islaaminba ka waramaya wali maan arag buurisay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam u weyneynayaan saxaabadu amar hadduu faro way kala dheereynaya biyihiisa weysida waxa weeyaan way ka barakaysanayaan haddii alla ku rooyay markuu la hadlayo goroday laalaadinayaan oo waxa weeyaan way fooraraan oo hadalkiisa weelaynayaan macnaha jacaylkii waxa weeyaan iyo nusradii waa inay noqotaa camal dadkeena maanta waxa weeyaan muslimiintii ciisiga iyo sharafka waxaynu ku gaarnaa diinteena soo aynu noqono يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم انتشر الشرك بالأرض انتشارا